وفد hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta galankii dambe soo gaaray magaalada Gaalkacyo iyadoo shacabka magaalada Gaalkacyana ay xilli aroor hore ah isugu soo baxeen soo dhaweynta madaxweynaha. soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha waxa ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdullaahi Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf iyo shacabweynaha magaalada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug. ugu horeyn madaxweynaha Puntland Cabdullaahi Maxamed Cali Gaas ayaa kelmado ka jeediyay soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kuna soo dhaweeyay hadalka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fagaaro kula hadlay shacabweynaha magaalada Gaalkacyo ayaa safarkiisa ugu magac daray dib u heshiisiinta Soomaaliya. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in Gaalkacyo ay noqon doonto bilowga dib u heshiisiinta Soomaaliya muhiimadda koowaadna ay tahay mideynta shacabka magaalada Gaalkacyo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in muddo 2 cisho uu ku sugnaan doono magaalada Gaalkacyo una ka shaqeyn doono mideynta shacabka magaalada Gaalkacyo oo muddo ku kala qaybsan isla magaalada. Cabdinaasir Maxamed Cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Gaalkacyo.